sunnaha nolosha waxaa ka mid ah labada lamaane ee wada nool inay isqabtaan oo khilaaf yimaado. sunnaha nolosha ayay ka mid tahay. laakiin dhibku wuxuu ka taagan yahay khilaafka yimaaday qaabkii loo maareyn lahaa oo xalin lahaa baa muhiim ah in la wada ogaado, la wada fahmo. labada qof intaysan soo guursanin ka hor ee shukaansiga haasaabo lagu wada jiray khilaafyo badan baa soo kala dhaxgalay. laakiin khilaafyadooda ayagoo kaliya ayuu ku koobnaa, ayagoo kaliyana go'aan way ka gaari jireen, wayna xallisan jireen. marka guriga la wada yimaado, khilaafka ugu horeeya ee labada qof ay ku dhacaan dad yaroo ilaahay u naxariista marka laga reebo, khilaafka markiiba wuxuu u soo banbaxayaa dad kaleeto aanan dadkii ahayn. brother or sister, khilaafkiina wuxuu ku wanaagsan yahay sidaa awalba intaad shukaasan jirteen u xallin jirteen inaad u xallisaan oo haddaad rabtaan gurigiina inuu sii dhisnaa. mar walbo khilaafkiina qof kaleeto uu maqlaa oo mar walbo labadiina kala fogaanshihiina u fogaadaan. ku dadaal guriga dhismihiisa, ku dadaal khilaafkiina inuusan banaan u bixin. insha allah wuu xallismayaa sidoo awalba aad u xallin jirteen. khilaafku markuu idinku koobnaa labadiina aad ahaadeen, khilaafku markuu idinku koobnaa saad u xallin jirteen wuu u xallismayaa. waa marka aad diidaan qof saddexaad inuu dhexdiina soo galo ama uu ogaado. ku dadaal inaysan sirta guriga dibadda aysan u baxin.